isu soo baxyadani ay sameeyeen xaafadaha ay ka mid yihiin Moscow, Hindiyaland, shacabka Injida, Leymbileys oo ka dhacay mid ka mid ah garoomada lagu tukado salaada ciid ee magaalada Berbera ayaa waxa lagaga cabanayay hadal habeenkii xalay toolaha ka soo yeeray wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta oo uu sheegay in ay ka heshiiyeen kirooyin ay wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ku soo rogtay guryahaasi. Bulshadani oo hadalka u kala dambeysay ayaa waxay sheegeen inaanay marnaba wax isfahan ka gaarin kirooyin laga qaado guryahaasi. madaxweynaha Musabbixi ee codka la siiyay madaxweynaha taariikhda marka laga sheekeeyo waa mujaahid waxba leedahay dadka horta halkan taagan waa reer Berbero intooda badan waa mujaahidiin dadkii ay ka tageen intii dhimatayna waa geesada hadal haysaana taanu guriyo ma arkay qaraabadan arkay canshuurta inay bixiyaan oo dawladda hoose waliba siiyaan oo loo sharciyeeyo baante ku waday hadaa dhaqaale doonayso dadkadii wadankii la qaaday aan isla waxba soo dhicinaya maanta qaata lagu horlisayo haddaad soo dhaxsanayso dhaqaale doonayso soo dhaxso laakiin ismaan kuma wadin muusa mujaahida dadkii mujaahidiinta iyo agoomii qaraabada ugu imanaya haddaad si dhaqaale doonayso halkaas yeelaba ka samee guriyo aad ka kaleeso umada Berberina ma wax nuclear lagu tijaabiyo dadkan waa dadkii jimbaadhiga iyo sabaayada ciidanka qaranka u sameeyay imigana waxay u diyaariyeen inay sabaayad dib u sameeyaan ay guriyooda ku dhacsadaan shaqoodana ku hubeeyaan bilaa tawfiiq waxa isugu yimi xaafadaha shacabka Fow, Leymbileys, Moscow, Chachabka, Hindiyaland dhammaan xaafadahaasi waxay ka kooban yihiin guryihii uu xalay ka sheekeynayay wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee uu lahaa waanu heshiinay way dhamaatay kiradii way bixiyeen wasiir shaqaalaha aad Berbera u soo diratay cid ay heshiiyeen iyo cid ay wada hadleen iyo cid ay sarkeen ma jirto hadday been ku sheegeen runtii waa tan xaafadihii waa kuwan shanta xaafadood halkan ay joogaan nin lacag bixiyayna ma jiro nin heshiis saxeexayna ma jiro lacag aanu bixinaynaana ma jirto Berberi maaha meel ka duwan gobolada kale hadday moodayaan inaan Berbera cidi joogin Berbera cidi way joogtaa looga dhintay 30 sanadood kirada ay ka qaadanayeen dib u dhiska ku sameyn waayeen waa dooroliyo barwaaqo way dumeen kuwani gacmaha iyo tacabkayga xoogaygiiba ku taagan yihiin kira ma naan aqbalina mayno mar labaadka guriyahaanu ku jirno waxaan u sheegayaa wasiirka inaan muquuno naloo siin muquuno nalooba siin xabad baan ku qabsanay dawladii siyaad baraanu ka qabsanay dawladii siyaad bare ayaanu ka qabsanay oo waanu dayactirnay oo waanu dhamaystirnay guri waliba uu dhalaalaya dad maataabaana ku jirta wax allaale waxba yaraatay aanu ka wada hadalay oo aanu isla meel dhignay wasiirka xalayta ka yili jaraa'idka waanu heshiinay reer Berbero kiradii bay bixiyeen ilaahay buu been sheegay waxa leeyahay wasiir been baa lagu sheegay horta inaad wax xubsato adigu intaad saxaafada degan inaad wax xubsato dub adigu aad u soo marto dhulkii aad shaqaalaha u diratay ayay ahayd been baa lagu sheegay cidna maanu heshiin guryahan cid u hayno farayaashan lagu wareejiyo aanu cid ka kiraysanay oo cid u haynayna ma jirin oo muquna nala siiyay waxaanu guryahan agoomo iyo maanta ayaa ku jirta mujaahidiintii baa jiifta jajabkoodii baa jiifa waa kuwa halkaa jiifa iyo caruur oo joogaan waxa weeye waxaan leeyahay wasiir dhulkan waad isaga soo riyootay Berberi goboladii kale Hargeysa guryaheeda meedhe haddii wax lagu qabanayo meedhe kuwa Hargeysa kuwa Burco meedhe kuwa Burco tiyaatarkii maxaa lagu qabtay xaggaa la geeyey madaxweynaha waxaan leeyahay guryaha wax hore lagu qaban waayey maantadan uu ka hadlay ilaa wasiirku waxaanu ku heshiinay dad baanu ka heshiinay iyo dad baan ka soo kireynay iyo dad baa hawlaha noo dhamaaday war meeshan guriyo ma jiraan aad ka hadlayso haddaad usha ka sawratay aqaladan mid walba afar reer baa ku jira qolqol ku jira oo gurigiisa soo saxada ka soo sameeyay lacagtiisa yara shilku helay ku soo kiciyay cidoo lacag gurigu dawlad leedahay kuma jirto haddaad doonayso meesha dawlad gurigu dhistay adaa garanaya u doono haddaad guriyo dawlad doonayso bakaaradii waa weynamay halkan guriyii halkan bakaarada ahaa boqolaal kun ahaa iyo qolka yar baa la arkaya annagu uma hayna dawlad guriyo uma hayna cid dawlad guriyo waysa waad garanaysaa xaajow hal talo fiican baan u hayaa madaxweynaha Somaliland talada fiican waxa weeyaan Berberi way diintahay dhulkeedu u banaan yahay
haddii ay hawlaha guud ka samaysanayso dhul iyo haddii dawladda hoose ka samaysanayso iyo haddii qolo kale ka samaysanayso dawladda dhexe iyo misraba dee wuu bannaan yahay hadda ha la bineeyo oo laga kireeyo dadweynuhu weli wuu istaba socdaa kuway dhaleen baa taagan oo aroosa oo wax dhalay oo saddex leh oo shan leh kuwaasaa kiro diyaara oo xalaala loola diyaariya waxaase jirtaa berberi waxay tii ugu weyneed ee ugu bakhaarada weyneyd xagga bakhaarada marka laga hadlaayo ee dawladdu leedahay maanta hadduu marka mucaawimaha dalka u yimaado Soomaaliland lagu caawinaya meel loogu rido lama hayo weelkoodii dadweynaha haysta waxa haysta ganacsato iyo waxa laga iibiyay niman la garanayno meel ay ka yimaadaan saxayn maanta madaxweyne arrinka kaamaan sugayn arrinka madaxweyne kaamaan soo dhalinyartii waxaan gobolka anagu oo ku dhalatay ee lagu dhalay guryaha sheegaysa leeday kira keenayo dad soo dirtay kuwa ugu dhalaano anagu waan ku dhalnay waliba والله وبالله يطلع وسيبات شيء سايي عد صادر طيبه كنا قناي toba reer baan isu dul saaranahay hadaanad guriyana siinaynin oo aanadna kala dul qaadaynin oo aanadna kala hagaajinaynin hanagu habsaamin hadii aad doonayso meel lacag ka soo baxdo iyo meel dhaqaale ka soo galo meelay hesheeni halkan balligwadla la isku qaybinayay nin walba halkii uu lahaa ku aaday deekragii ku soo aaday kuma dhimaatidoodii baa ku jira guryahan meel kale kama imanin dadkan inta beer soo fuftay weeyaan madaxweynaana waxaan u jeedinayaa mudana madaxweyne adigu wadanka kamaad maqnayn ragii xogta iyo xogagaalka hayay baad ahay Soomaad garan marka waxa weeyaan hanagu dayin ragayagii hana xasuusin hab islaam waliba waxay ku weyday qaar baa shinshan waayad mid baa mid lahayd midii weyday Allah been buu sheegay annagu guryo ugu haynaba dawladda waxaan ku jirnaa guryahan faqash ka qabsanay ee ka xoreysanay ragayga ku weynay waxaan ku leenahay wasiira ku absaamin muusow hadii aad been lagu soo sheegay adiguna dekadii soo dhaxsadee dekadii baa halkan ah soo dhacso warka beenta dadka ugu waramaya iyo maxay ahaydey madaxweynaha mas'uulka aan moodayna anagu aan maanta farta dhexda ka qaninidii oo filinka yahay waxa weeyaan waxaan u sheegayaa madaxweyne been baa lagu sheegay waxa weeyaan hadii aad inaad anagu waxaan filaynaa inaad fooqiyana saarto aad maxay ahaydey abaalkayagii aad gudo laakiin ma naan filayn maatidii caruurtii maxay dhaawac qaraabadaha ku haysatay ku hoosaysatay inaad maxay ahaydey madaxweyne aad tiraada ka soo guro oo ka soo jiida